annaga waxaan banaankan fadhiyan dadka banaanka fadhiyaan ku jiray oo masaajidkan ka soo baxnay barxadda banaanka ah oo kuraastu ay taalan ku fadhinay halkaasaa lagu maaragtay muxuu damaashaadayay oo lagu caweynayo dadku isaga sheekaysanayeen marka qaraxu dadka hal mar uu ku baraarugay oo dhacay fursad ban lama siinba dadku ay ku cararaan isla markii bambooyina haddana ooda laga qaaday afar saddex bamba lagu qarxiyay meesha ay ka soo galeen hotelka irida lagu qarxiyay ilaa ay soo gaareen barxadda aan ku fadhinay marka dadku saddex qodob u kala jabeen qola irida isku maqiiqado irida weyn la jabsaday oo galbeedka hotelka ka soo looga soo galo qolana koray u kortay hotelka jaranjaraday kortay waxay aad koray hotelka u kortay qola luqluqyaday galeen marka qolada ugu qasaar baan waxaan qolada hotelka galay oo kor aaday oo jaranjarada koray kuwaas dhib badan ayaa gaari ama dhaawac ha noqdo ama dhimasho ha noqdo ilaa haddana qolada maaragtay la haysta waay laakiin wixii banaanka u baxay wax yaraa ka dhintay qolada luqluqa ayaguna isku gabaad ka dhigtan oo anigu aan kamid ahayna waa askarta soo badbaadis intooda badan wax yara ma ka dhintan malayna adigu laba iyo saddex maaqa waxay ahaayeen laakiin intooda badan waa la badbaadiyay dadkaas oo luqyada isku haki shabaabka nimanka soo galay hotelka iyo ciidamada dawladda markay yimideen 2 saac iyo baraa u dhaxaysay intaas way maqnaayeen dadku maaragtay waa la badbaadi karay ayagana dagaal hadii laga hortago dhibku intaas waa ka yaraalahay wixii meesha ka dhacay wax la koobi kara ma ahan dadku waa dhamaaday hanti badan ku baabaxday dhaawac tira badan yaala ilaa hadda lama haayo wax gurmad oo macna leh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un kullu nafsun daqiyatul maut qof walba oo naf la geliyo waa tii dhimata waxaan rabaa halkaan inuu tacsiyeeyo dadkii walaalaheen ahay waxyeeladu ka soo gaartay masiibada ka dhacday hotel Hayaat ku yilay magaalada Muqdisho qaasatan number 4 marka meeshaas dad badan oo bulshada raasadeedii oo labeenti bulshada ku dhintay min awal ilaa aakhir waxaan uga tacsiinaa ummadda Soomaaliyeed ayagana waxaan leeyahay jannadii firdaws Allah ka waraabiyo kitaabkooda midigta Allah ka siiyo waa dadan waxba galabsan ayadoo nabad ku damaashaadayo hotel iska fadhiya ayaa weerarka lagu soo qaaday dhagar qabayaal in badan ba dhibaatadaas dabada ka waday ayaa galaaftay marka ummadda Soomaaliyeed waa uga tacsiinaa ayagana waxaan leeyahay Ilaahay ha ka waraabiyo jannadii firdawso qof walbana caailadeedii iyo maaragtay gurigeedii iyo caruurteedii iyo qaraabadeeda Allah ka sabar siiyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed uga tacsiina dadka meesha ku jiraan kamid ah hotelka in badan aan deganaay adigu 3 sano oo dhowaan deganaay runtii waxay ahayd masiibo oo maaragtay nakidisay hadii inta ku dhimatana waa uga tacsiina waxaan leeyahay Allah naxariisto inta ku dhaawacanta Allah shaafiyo hanti fara badan oo ku baabaadan Ilaahay bedelkeeda ha siiyo wixii ka baabaaday marka anagu meeshaan ku jiray waxay ahayd xilli laga soo baxay maghribka ceeshihin la sugaayo oo maalintaas ay jimca ahayd sabdin caawa ay soo hoyatay marka taqriiban markaan maghribkii moognahay nus saac oo kaleeto ayaan meeshan aad loo buuxo oo ay saxmad ah tahay oo dadka fadhiya dadka taagan labaduba ay maaragtay ay badan yihiin ama isla eg yihiinba ayaa markaliya waxa dhacay qarax xoogan oo dadkii ka argagaxay markii la kala yaacayna waaba soo galeen nimankii waxa la arkay ayagoo bambooyin ku garaacay maaragtay hotelka dhexdiisa anagu maxaan isla markii hore aniga inta waxaan ku jira fadhiday meesha oo waliba xagtay sayidka ay ka soo galayeen marka waxaan moodayay qaraxu inuu maaragtay qaraxii aska caadiga yahay oo waxaan kidisay ayadana moogta oo ku talagalsanayn inay hotelkaba soo galeenba marka dadkii saddex ay noqdeen qaarna waxay u yaaceen ganjeelka weyn ee aadeen oo qoradhaca hotelka looga baxo qaarna hotelka kor ugu yaacaan oo jaranjarada ay fureen ay koreen qaar kale tana luqluqyaday galeen marka anigu waxaan kamid ahaa dadkan ordin oo meel luuqan isku laabay oo ka dhaxaysa hotelka Saxafi iyo Hayaadka aan ku jirnay meel luuq oo darbigooda isaga dhow yahay ayaan isku laabnay saddex qofood ayaan ahayn meeshan waxaan ku jirnay maaragtay ilaa 1 saac iyo bar 1 saac bar markaan joognay waxa soo galay ciidamada markay soo galeen haddana intay ciidamada dagaalka ay ku jireen ilaa waxay noqotay 4 saac ay soo gaartay adigu taqriiban 5 saac ay marka ay askarta ku guuleysteen anaga inayna soo saaraan aniga rag kale saaxiibada ay hoojar inay soo saaraan 5 saac ay ku guuleysteen hadii askartana waa u mahad celinaa qaasatan muxuu taliya Farxaan Qaroole iyo ciidamada la jirayba marka hadii meeshaas waxa ka dhacay masiibo qarana ka dhacday waxa kale ayadana wax laga xumaadaa nimankii dambe
oo ka bedelay muxuu ahay qoladan la yiraahdo qoladan booliiska ah magacooda muxuu ahay nimanka la yiraahdo waxa la yiraahdaa muxuu ahaa haram cadka oo Farxaan Qaroole ciidamadiisa ah ciidamadaas markii hore waxaad moodaa inay xoogaa wax muujiyeen oo hidiidila sameeyeen oo dad badan ay soo badbaadiyeen laakiin qolada dambe oo kala wareegtay ma aqaan adu magac ay leeyihiin Alpha Group miyaa la yiraahdaa gaashaan miyaa nool soo ma aqaan magacaas ay leeyihiin nimankaas hotelkana waa baabi'iyeen wax badan oo wax qabadana ma sameeyeen ilaa haddana waxa lagu leeyahay meesha waa lagu jiraa marka qof kasto ku dhimatay meeshaas oo masiibadaas u galaafatay waxaan leeyahay Ilaahay kitaabkeeda midigta ka siiyo ummadda Soomaaliyeedna tacsiyan ugu darayaa meel ay joogto qaasatan caa'iladii ee dadkaas dhintay ay maaragtay kamid ahaayeen qaasatan waxaan u tacsiinaa wiilkayga ama walaalkayga ama saaxiibkay Xasan Maxamed Yelxow caruurtiisana waxaan leeyahay Ilaahay maaragtay sabar iyo iimaan ha ka siiyo ummadda Soomaaliyeed sidoo kale Cabdiraxmaan Xasan Iimaan waa u tacsiinaa marka walaalahay dhamaantoodba waa u tacsiinaa inta dhaawaca oo ayadana saaxiibaday sidii Mootaan Axmed iyo ninka la yiraahdo gudoomiye Cali Gacal iyo rag badan oo ayadan aan magacyadooda halkan lagu soo koobi karin oo isbitaalada ku jirana waa u tacsiinaa marka waxaan leeyahay masiibadaas waxay ahayd mid oo runtii baahsan waxaan rajaynaa Ilaahay inuu maaragtay noogu bedelo muxuu ahay wax khayr qaba marka dawladda xogaa waxaad moodaa inaysan runtii sidii la rabay aysan maaragtay gurmad u sameeynin maxaa yeelay annaga meeshan ku jiray shabaabka nimanka soo galay hotelka iyo ciidamada dawladda markay yimideen 2 saac iyo baraa u dhaxaysay intaas way maqnaayeen dadku maaragtay waa la badbaadi karay ayagana dagaal hadii laga hortago dhibku intaas waa ka yaraalahay marka waxaan leeyahay ilaa hadda xataa madaxweynaha madaxda ma aysan hadlin arintaas waxaad moodaa dadka waxay ku yibteen niyad jab mid kale madaxweynaha iyo gabineedkiisa iyo ra'iisul wasaaraha iyo kullu waxaan ugu baaqaynaa nimanka dagaal ay ku baaqeen dagaalka nimanka waa galeen markay dagaal ku baaqada hore ka bilaaban iyaga nimankaana waxma diyaar dawladda waxma diyaarsana marka meeshaas masiibada ka dhacday waxaad moodaa dadku inay maaragtay muxuu ahay dawladdu ay wax badan oo ay ku leedahay saameyna marka waxa la rabay dagaalka ay ku baaqayaan oo waliba sifa wala dagaalamay ay cadeeyeen oo ay intaas soo qodobaan intaas soo ay taban kula dirirayna saas ula dirirayna ayadoo waxba hayn oo dagaalna ku jirin masiibadana u keenay inay maaragtay nimankii meel walba ay culay soo saaraan dadka laayaan waliba intaan meel kale bal aadin xamar ay nabadii la haystay la laalo abniga oo cirkaas galo oo maaragtay oo galo muxuu ahay ciriiri galo ay dhaxashay baaqi madaxweynaha iyo warka uu ku baaqay marka arintaas waxaan dawladdu waxaan isleeyahay meeshaas qaladay ka gashay inay dib u saxdaan ayaga laga rabaa marka dagaalka haday sheegeen dagaal waa dagaalamay inay dagaalamaan rabay hadii kale aysan sheeginba aysan maaragtay ninka dadka ku dirin marka meeshaas dhibaato ka timid runtii hadii dhamaan wixii meesha ka dhacay wax la koobi kara ma ahan dadka waa dhamaaday hanti badan ku baabaxday dhaawac tira badan ayaa yaala ilaa hadda lama haayo wax gurmad oo macna leh dawladana waxaad moodaa inaysan doorkii la rabay aysan ka imaanin marka arintaasna waa arin meesha ku jirta marka waxaan leeyahay madaxweyne ra'iisul wasaare gabineed kala golaha wasiirada hadda la magacaabay arintaas waa arin maaragtay meeshaas waxa ku jira qalad saxin raba ku jira shacabkuna waa niyad jabsan yahay qaraxyaduna waxaad moodaa iyo dagaalka nimankaas ay ku jiraan waa soo tara marka waxa la idinka rabaa waxaad ku tala gasheen anaga waxaan banaanka fadhiyaan dadka banaanka fadhiyaan ku jira oo masaajidkan ka soo baxnay barxadda banaanka oo kuraastu ay taalan ku fadhinay halkaas lagu maaragtay muxuu damaashaadayay oo lagu caweynayo dadka isaga sheekaysanayeen marka qaraxu dadka hal mar uu ku baraarugay oo dhacay fursad man lama siinba dadku ay ku cararaan isla markii bambooyina hadana ooda laga qaaday 4-3 bamba lagu qarxiyay meesha ay ka soo galeen hotelka irida lagu qarxiyay ilaa ay soo gaareen barxadda aan ku fadhinay marka dadku 3 qodob u kala jabeen qola irida isku maqiiqado irida weyna la jabsaday oo galbeedka hotelka ka soo looga soo galo qolana koray u kortay hotelka jaranjaraday kortay waxay aad koray hotelka u kortay qola luqluqyaday galeen marka qolada ugu qasaarban waxay qolada hotelka galay oo kor aaday oo jaranjarada koray kuwaas dhib badan ay gaari ama dhaawac ha noqdo ama dhimasho ha noqdo ilaa haddana qolada maaragtay la haysta waay laakiin wixii banaanka u baxay wax yara ka dhintay qolada luqluqa ayaguna isku gabaad ka dhigtan oo anigu aan kamid ahayna waa askarta soo badbaadis intooda badan wax yara ma ka dhintan malina 2-3 ma waxay ahaayeen laakiin intooda badan waa la badbaadiyay dadkaas oo luqyada isku haki marka horta wixsaas u dhacaan laakiin meesha aan isleeyahay waxay u baahneed daan intaas ka badan waxa way gurmadkuna waa dhaahay maxaa yeelay
laba saac oo consecutive iyo wax la jira ay ciidanka dawladda ka maqnaayeen meeshaas meelaha ay xarumaha ay joogaanna waa la ogyahay meelo dhow waayo oo hotelku wuxuu ku yaalaa centerka magaalada ku yaala number 4 ku yaala marka waxaan isleeyahay meeshaas waxaa ku jira qaradaad sixid raba ku jira wixina wax hadda joogsana inay yihiin ma cadda marka waxaan rabnaa halkaas culays badanaa dadku ay ka tabanayaan waxa kale oo ayadana yaani aan isleenahay sidii la rabay lama yeelin dagaalkii lagu qaaday hotelka oo dhulka lagu dhigo lagu dushay ma ahayn munaasib ma ahayn farsamo sidaas ka sahlana maaragtay loo maareyn karay badbaadi intaas ka sabana hotelka lagu sameey karay hotelkii weynaay oo ummadda Soomaaliyeed ay ku naaloonaysay oo runtii muxuu ahay hotel raaxo oo macno weyn u lahay magaalada iyo bilicdeeda iyo mataqaana dadka Soomaaliyeedba dhulka la dhigay ilaa haddana waxa ku jira fara ku tiriso mar waa laba lagu sheega mar waxa leeyahay hal qof mar saddex la leeyahay marka wax dawlad dhamo ay ka adkaa weyda ma aha wax meesha ku jira taasna iyadana waa fahmi ilaanaha wax intaas maaragtay ay u dhacay waa fahmi kala iyadana waxay u baahantaa dadka in laga qanciyo marka already waxaan rabnaa dawladda waxaan ugu baaqaynaa dadaalkeeda inay kordhiso sida hadda ay wax ku socdaan ma ku qanacsanin dadkuna waa niyad jabsan yahay marka dagaalka aad ku baaqdeen iyo sida aad maaragtay u dabacsantiin waa kala duwan tahay dagaal dardarahana la soo qaado dalka la rabo in lagu mariyo oo dadka la mariyo soo hanbada la dhameystiro marka hadii mas'uuliyadda adanka idin saaran tahay dadka mas'uuliyadda qaadeen marka waxaan rabnaa arintaas inay maaragtay dawladdu ay gacan ka geysato oo ay sida hadda ay wax u yaaliin si ka doon ay u taalo qof kasta oo Soomaaliya maanta Muqdisho jooga wuxuu dareemaa niyad shabu wuxuu dareemaa dhibka meeshaas ka dhacay sidii umudnad in loo maareyn waxaan aaminsanahay dawladdu inay ka gaabso doorka ay lahayd maxaa yeelay wax gurmadka la sameeyay waa aad u liita waa gurmad hooseeya askartu xataa niyadeedu ma dhisno saraakiisha waxa la sheegay boqotalaan iska fadhiyaan oo maaragtay ku shaaheynayna ku sheekaysanaya faraxsan yihiin waliba oo waxa meeshaas ka dhaca aanay maaragtay culays weyn u arkaynin marka runtii waxaan leenahay wasiir hadlay anagu ma maqal madaxweyne hadlay ma maqal bare minister hadlay ma maqal marka hadii waay dadka marka yaa ka mas'uuliyad aaw marka xagee aad mas'uuliyad marka arintaas waxaan leenahay arrin lagu qanac ma ahan runtiina waa ka xunnahay ummadda Soomaaliyeedna meel jirto uga tacsiina waana arintaas in laga jawaabo dawladdu inay jawaab ka bixiso arintaas waxaan u mahad celinaa Ilaahay abuurteen marka hore asaga horta u badbaadiyay oo qof uusan asigu badbaadin ma badbaado laakiin sababta waxa iska lahay ciidanka maaragtay haram cad oo booliiska iyo qaasatan taliyaha muxuu ahay gobolka Banaadir Farxaan Qaroole marka ninkaasi ciidankiisa u mahad celinaa ayaga runtii juhdi badan igiliyay ayagaana maaragtay ugu dhibtooday ilaa iga soo saareen meesha aan ku ciriyoona ku jiro dhibka uga haystay marka markoobaad iyo marka badan waa u mahad celinaa waxaan leeyahay Ilaahay ha barakeeyo shaqadiisana shaqo wanaagsan wabillahi tawfiiq